waxaan dhakhaatiirtiinii waxa kaliya aan idiin soconaa waxa weeye inaan idin barno habka xanuunkan ku gudbo. maalinta ka sii dambaysa waxay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya sii xoojinaysaa dadaalada ay ugu jirto ka hortagga COVID-19 oo farabaas dunida ku haya. waxaana maanta dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya wacyigelin ballaaran ka samaysay IDP-ga Maxamed Moogo ay ku nool yihiin qoysas gaaraya 270 qoys. waxaanu idinku nimidnay inaanu idinka wacyigelino xanuunkan safmarka ah ee adduunyadii oo dhan kaga qaylisiiyay ilaahay naguma keenay dalad ahaan waxa naga go'an inaanu dadkayga gaarsiino oraa iyo mucaawano kolba wixii awoodayada ah. waxaanu idin wadnaa dhakhaatiir dhalinyaro oo inamiyo hablaba leh oo si nafhur leh oo mutadawacnimo ah idinka wacyigelinaya siyaabuhu u faafi karo xanuunkan siyaabaha lagu kala qaado iyo sida looga hortagi karo. qofku ma garanayo taanu xanuunkan ku dhicin laakiin markuu ku dhaco runtii waa wax xanuun daran oo maaragtay halis badan marka ilaahay ay naga haye ka hortagiisii baynu wadnaa. xanuunkan weli dawo looma hayo laakiin waxa la isla gartay in ay jiraan waxyaabo lagaga hortagi karaya. maanta fariinta ugu muhiimsan waxa weeye inaynu dhakhaatiirta dhageysano si fiican waxay noo sheegayaan gunudno hirgelino ilaahayna tala saarano ilaahay baranay inuu naga duwo bishii Ramadaan baa soo dhow waa inaynu ilaahay baranay inuu ilaahay naga duwo dadkuna waa inay talagal sameeyaan oo haddii aynaan inagu maaragtay qof walba aanu mas'uuliyadiisa saarin cid inoo imanaysa ma jirto. adduunyada dalalkii ugu dhaqaalaha badnaa mid kastaaba uu xidhay xadkiisii marka xitaa cid is caawinayso oo isku imanayso isku soo gurmanaysa ma jirto maaragtay geed walba in gubtaa way hoos taallaa. marka deenagunba isku tashanayna arrin iyo adduun kolba wixii aynu hayno marka maanta intaasaan idinku soconnaa aad baad u mahadsantihiin dhakhaatiirtan ku wareejinaya. taaynu doonayno inuu ogaano aanu ummadana ay tahay inaan u sheegnaa waxa weeye sida xanuunkan uu gudbayo. xanuunkani waa xanuun raacaya hawada oo sidii duriga oo kale si dhaqso ah ummadoo dhan u gaadhi kara bulsho badanna si yaro fudud ay waxa weeye isku gudbin karto. waxaan isku dayaynaa inuu awood badan saarnaa sidaan iskaga ilaalin lahayn intaynu awoodno. markaynu doonayno inaan iska ilaalino waxa ku muhiim ah inaad qofka ka fogaatid. waan ogahay inay adag tahay mujtamaceena inay laba qof kala fogaadaan laakiin haddaan maanta isku dayno beritoona waan karanaa. marka leenay kala fogaano ugu yaraan qofka waa inaad 1 mitir u jirsatid oo ah intaan anigu imka gaadhigan aanu jirsano hoog. talabaad inaan farxano waxay ku saamaxaysaa dad meel ka soo qaata jeermiska inaad meel kale aadan la tagin inaad mar walba aad farxalato inkastoo ay adag tahay oo geeynu nagu yar yihiin iyo saabuuntii haddana inaynu isku dayno iyada laftirkeedu wax badan bay noo tarisaa. 3 inaynu xidhano afka haddii aynaan ilaalin karin masaafada maaskiyadu way nagu yar yihiin dalka markaynu joogno dhammaan muwaadiniinta oo dhan lama wada siin karo qof walba ma uu heli karo sidaa darteed waxaan kula talin lahaa haddii aad maro yar helaysaan inaad afka iyo sanka ku xidhatid maro yar oo imka marooyinkeena inaan isticmaalno haddaynu dhowr jeer isku laabno oo kale inuu afka iyo sanka ku xidhanno waxay mar walba inooga faa'iido badan tahay inaad iska socotid adigoo afka iyo sanka xidhnayn. waxaa dhici karta inaad isku aragto in neeftu ka qabato haddii inta badan waliba qofku markuu weyn yahay neeftu kala qabato calaamadaha noocaas waa calaamadaha ku garan karta haddii cudurkan ku hayo. waxaana muhiim haddii aad isku aragto calaamadaha noocan inaad la hadasho xarunta ugu dhow ee caafimaad ama call centerska la sameeyay lambaradii la sameeyay inaad qaraacdo oo wacdo una sheegto xaaladaada tan ayaa kula socodsiinay wixii talaabo aad qaadayso ama halkaaga iyaga kuugu imanaya.